tan iyo dhicitaankii midowgii Sofiyeed, Ruushka ayaa u arkay Ukraine marin muhiim ah oo xiriiriya bariga Yurub, aag difaaca ah oo iska caabiya galbeedka. Putin ayaa aaminsan in haddii ciidamada NATO ay galaan aag difaaca ay u arki doonaan caqabad, taasi oo Ruushka soo wajahday ayna ka bixin doonaan jawaab ku haboon. Sidoo kale ma aqbalayaan in dalalka Yurub ay hub siiyaan Ukraine, waana in xisaabta lagu daraa in Ukraine aysan xubin ka ahayn midowga Yurub, inkastoo ay ku taalo qaaradda Yurub. Dalkan xitaa kama tirsana NATO. Muuqaalkan ayaan ku soo bandhigi doonaa hadduu Ilaahay idmo waxa ay salka ku hayso cadowtinimada u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta daawadayaal. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa duulaan military ku qaaday Ukraine bishii Febraayo 24keedii 2022. kumanaan kun oo qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalkaas ilaa hadda socda. Ukraine iyo Ruushka sidoo kale waxa soo gaaray waxyeello ba'an, balse weli dagaalka ma uusan dhamaan. Maxay tahay sababta uu Putin ugu walaacsan yahay Ukraine? Maxay tahay sababta Ruushku ugu fogaaday dalkan deriska la ah? Jawaabtan ayaa waxa ay ku saleysan tahay taariikhda dhulka iyo luqadda labada dhinac. Taariikhda dhaqan ee Ukraine iyo Ruushka waxa ay soo bilaabatay qarnigii 9aad markii dalkii qabaa'ilada ee asal ahaan ka soo jeeday gobolka Slavic iyo Kievan Rus. Dadka gobolkan ayaa aaminsan in Ukraine maanta Ruushka iyo Belarus ay ka soo jeedaan Kievan Rus. qarnigii 10aad hogaamiyaha Kievan Rus waxa uu ahaa Prince Vladimir, oo sidoo kale loo yaqaanay Prince Vladimir the Great. waxa uu ahaa Vladimir qofkii aqbalay isla markaana faafiyay diinta Kirishtaanka. sidaas darteed waxaa sidoo kale dalal badan looga yaqaanay Saint Vladimir, waxaana ka mid ahaa Ruushka iyo Ukraine. waxa ay ka dhigan tahay in labada dal ay ka soo jeedaan isla hal gobol marka loo eego diinta iyo isirka. ku dhawaad 4 qarni waxaa socda dhaqangelinta Kievan Rus. kadib markii ay dhacday xukuumadii Kievan Rus, xiriirkan ayaa dhamaaday. dhowr quwado galbeed ayaa ka aas-aasmay bariga Yurub. mar xilliyada ka mid ah gobolkan waxaa xukumayay quwado shisheeye sida boqortooyada Mongolia iyo Poland. kadib qarnigii 17aad iyo 18aad Ukraine ayaa mar kale qayb ka noqotay boqortooyadii Ruushka. Ukraine iyo xilligii Sofiyeedka kadib kacdoonkii Ruushka sanadkii 1917 boqortooyada ayaa la burburiyay. kadib sanadkii 1922 waxaa soo ifbaxay midowgii Sofiyeedka. xilligaas Ukraine waxa ay ka mid ahayd aasaasyaashii midowga. muddo laga joogo 69 sano Ukraine iyo Ruushka waxa ay qayb ka ahaayeen midowgii Sofiyeedka. xilligii uu socday dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyay midowgii Sofiyeedka iyo Mareykanka, Ukraine waxa ay ka soo horjeeday Mareykanka. taasi kama dhigna in wax walba oo labada dal ka dhaxeeya ay hagaagsanayeen. sanadihii 1932 iyo 33 abaar ba'an ayaa ka dhacday Ukraine, taasi oo dishay malaayiin qof. dad badan oo reer Ukraine ah ayaa aaminsan in macluusha loo yaqaano Holodomor ay ahayd mid kas loo sameeyay, isla markaana ay mas'uul ka yihiin siyaasadihii midowgii Sofiyeedka. caradan ayaa sii xoogaysatay saboolnimadii ka jirtay dalalkii midowgii Sofiyeedka. hawaqubxumadii dagaalkii qaboobaa soo ifbixi fikirka cusbaa. isbedeladii uu horseeday madaxweynaha midowgii Sofiyeedka Mikhail Gorbachev ayaa ugu dambeyntii dhaliyay galgo'a Sofiyeedka oo u kala qaybsamay 15 dal. sanadkii 1991 Ukraine ayaa ku dhawaaqday madaxbannaanideeda. Ruushyaanka qaar sida Vladimir Putin ayaa weli aaminsan fikradan 30 sano kadib. waxaa sidoo kale laga dheehan karaa khudbadaha uu jeediyo Putin. muhiimadda dhuleed iyo istiraatiijiyadda Ukraine. masaafada u dhaxaysa Kiev oo ah caasimadda Ukraine iyo Moscow oo ah caasimadda Ruushka waa 700 ilaa 800 oo kiiloomitir. Ukraine ayaa mar walba istiraatiiji ahaan muhiim u ahayd Ruushka intii uu socday dagaalkii qaboobaa. midowgii Sofiyeedka ayaa sidoo kale keed ballaaran oo hubka nukliyeerka ah u keediyay Ukraine. in Ukraine ay garab joogto ayaa mar walba muhiimadda koowaad u ahayd Ruushka marka ay timaado marinadeeda ganacsiga badda madow iyo Mediterranean-ka. tan iyo dhicitaankii midowgii Sofiyeed, Ruushka ayaa Ukraine u arkayay marin muhiim ah oo xiriiriya bariga Yurub iyo aagga difaaca ah ee iska caabiya galbeedka. Putin ayaa aaminsan in haddii ciidamada NATO ay galaan aagga difaac ay u arki doonaan caqabad, taasi oo Ruushka soo wajahday ayna ka bixin doonaan jawaab ku haboon. sidoo kale ma aqbalayaan in dalalka Yurub ay hub siiyaan Ukraine. waa in xisaabta lagu daraa in Ukraine aysan xubin ka ahayn midowga Yurub, inkastoo ay ku taala qaaradda Yurub. dalkan xitaa xubin kama aha NATO. 10kii sano ee ugu dambeeyay saameynta fikradaha Yurub ayaa kor u kordhay gudaha Kiev. sidaas darteed laba qaybood
qaybood ayay dadku yihiin, waa kuwa fikradaha Ruushka taageersan iyo kuwa taageersan fikradaha Yurub. Dhaqanka iyo luqadda, sida ay dadka qaar ay qabaan, kala qaybsanaanta ayaa ka jirta Ukraine sababtoo ah dadka Ukraine ma sina luqad ahaan iyo dhaqan ahaan. Luqadda Ukraine waxaa looga hadlaa galbeedka iyo qeybaha dhexe Ukraine, halka gobollada koonfureed iyo bari ay inta badan degan yihiin dad ku hadla afka Ruushka. Isla arrinta qusaysa luqadda ayaa sababtay dagaalkii 2014 xilligaas darbaxyo ka dhacday barxadda Maydan ee Kiev ayaa sababtay afgembi, iyadoo madaxweyne Viktor Yanukovych uu ka cararay dalka uu magangelyo u aaday Ruushka. Markaas kadib dadka aaminsan fikradaha Yurub ayaa xukunka qabsaday, iyadoo gacanka afka Ruushka looga hadlo ee Crimea uu go'aansaday in uu ka go'ay uuna ku darsoomay Ruushka. Qoraaga iyo wariyaha Olivier Polow ayaa sheegay in Putin uusan weligii qirin damaciisa ku aadan in mar kale uu Ruushka ka dhigo mid saameyn leh. Khudbadiisa ugu horreysay ee ra'iisul wasaare uu ahaa waxa uu carabaabay dib u qaabeynta dalka. Putin ayaa doonaya in uu iska dhigo hogaamiye isku celin kara Ruushka, iyadoo khubaro badan oo Ruushka ah ay dareemeen in Putin uu ku dhagan yahay dib u hanashada Ukraine. Taasina waa sababta Putin 2008 uu u weeraray Georgia oo qayb ka ahayd midowgii Sofiyeetka. Gobolka Georgia ee South Ossetia iyo Abkhazia ayaa wixii intaa ka dambeeyay ku jiray gacanta Ruushka. Aragtida Putin ee Ukraine ayaa sii xoogaysatay, isagoo inta badan soo hadal qaadi jiray waxa uu taageeri jiray dadka afka Ruushka ku hadla ee Ukraine ku sugan. Taasina waa sababta uu u go'aansaday in Crimea uu ku daro Ruushka. Hadda kadib 7 sano ilaa 8 sano isla xaaladaas ayaa mar kale ka dhacday. Putin ayaa aqoonsaday gooni ugoosadka gobollada Ukraine ee Donetsk iyo Luhansk. Muuqaalkeena maanta intaas aynu ku soo koobaynaa. Akhyaaray amaano Allah.